بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay dunida daafaheeda ka joogaan. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa si gaaban inaan uga hadlo doodii maalmahan ka socotay baraha bulshada ee dhalisay dooda badan iyo hardanka iyo kala duwanaanshaha keentay xagga fikirka iyo xagga maaragtay aragtida intaba. waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo culimadii Soomaaliyeed ee sida degan nasaaxada leh sharafta leh arintaas uga falceliyay ina soo jeediyay si gaar ah ama si guud waxa ku haboon qaladkii ka dhacay khudbadii aan ka jeedinayay dalka Jarmalka. waxaan kaloo rabaa inaan halkan isaga cafiyo culimadii ayagana aniga sharafteyda ama cirdigeyga ama diinteyda gaaray. waxaan rabaa si ilaahay dartiis ah inaan ayagana isaga cafiyo. waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay oo u arkay dulmi aniga la ii geysanayo ama la igu beegsanayo ama mid la soo abaabulay oo aniga igu aadan oo aanan ku aadanayn khaladkii ku jiray khudbadeyda ee ka baxsan ee arintaas ka falceliyay. ayagana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. sidaan hore u sheegay waxaa magafa ah ilaahay subxaanahu watacaala asaga keliya ayaana ah qofka aanan gafin. كل ابن آدم النبي وحيد عليه الصلاة والسلام خطأ وخير خطاؤون التوابون. قف كستا أو بن آدم وقفاء وحانا وخير بدن قفك قفاء قفك كتوبة كينا. أبوان سوماليادنا وحويري قفك بشر بعض أتهي إناد كقراب تقلد قبي عادة تهي. وحان ربا إنان عدايو سيدا مركه رو عدايي أنوغو مرنا إنو قصد كيهين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشيء سيحين كويا لا ضد كدلتي إن أنا ديدنين وأنا اعتراف سنة هاي حديث كاس إنه يهي حديث صحيحة متن جيسة معنى جيسة لفظ جيسة انتبه. وعن كلو اعتراف سنة هاي سيد النبي نصوبا عليه الصلاة والسلام وأقبحي فسر كا يفسر هذا يتفسير كا وكبحي. وعن كلو اعتراف سنة دينتنا سماوي oo quraanka kariimka ee sunnada nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam horeyso inay tahay diinta xuquuqda ugu badan siisay dumarka iyo haweenka. waxaan sidiidanahay oo sidaas daraadeed wax allaale iyo wixii khalad ah ee khudbadaas ku jiray waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiisanayaa inuu arintaas iga cafiyo asagaanan uga tooba keenaya. anuu aaminsan toobad cid iskale inay tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aysan qof min aadana toobada aysan lahayn. ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa wixii gaf ah oo khudbadaas ku jiray ka weydiisanayaa tooba. waxaanse markasta diidanahay oona u taagnaa doona hadduu ilaah yidhaahdo in ayadoo diinteenna ay tahay sunnadeena nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aanka ay yihiin waxaa ugu badan ee dumarka siiyey xuquuqda in uu jiro dhaqan guracan oo bulshadeena ku dhex jira fasiraad qaldan oo diinta laga sameeyey oo lagu dulminayo xuquuqda dumarka. kaas waan diidanahay. waxaan ahay qof u taagan inuu ka hortago dulmigaas ka dhiidhiyo difaacana xuquuqda dumarka ay siisay shareecada islaamka. sidaan ognahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam habluhu waxay ahaayeen senior councilkiisa wax la yidhaahdo taladii golihiisa sare ku jireen. islaamka ayagaa ugu horreeyey nabiga wax rumeeyey ayagaa qofkii ugu horreeyey u dhintay diintan ayagay ahaayeen. ayaga kaalin aysan ka qaadan diintan ma jirto. quraankeena kariimkana san hore u sheegay wuu amaanay haween soo jeediyay adduunkan tala soo qabtay wuu amaanay. sidaas daraadeed waan u taaganahay inaan difaaco cidaan uga cabsanayo ama uga gambanayana ma jirto. xuquuqda iyo kaalinta siyaasadeed iyo kaalinta bulsho oo quraankeena kariimka ah siiyey haweenkeena. sidaas daraadeed waxaan rabaa in dhacdadaas dhacday iyo falceliskii ka yimid iyo wixii dadka kala gaaray dabcan doodaha dhammaantood intooda badan waa arkayay ama kuwa ka imaanaya culimmada ama kuwa ka imaanaya dadweynaha
ama kuwa ka imaanayo taageerayaasha ama kuwa ka imaanayo kuwa iga soo horjeeda ama kuwa ka imaanaya siyaasiyiinta intaba waan arkayay waana ii muuqdeen sidaas daraaddeed anigu qof kasta oo arrintaas wax igu yeeleeyey ama wax iga soo gaaray waan cafinayaa qof kasta oo aniga aan dhibaato u geystay ama gaf iga tabanayana waxaan rajaynayaa asagana inuu iska kii cafiyo arrintaasna ay soo xiranto halkaasna ay ku dhammaato dhammaanteen dadka soomaaliyeedna ay is cafiyaan culimmadana waxaan ugu baaqayaa mar kale inaysan la kala safan siyaasiyiinta siyaasadda rag baa isku haya taladeeda rag baa isku haya waxaan rajaynayaa inaysan dhinacna la safanin oo aysan dhinacna u beerin haddii aan la kaftanaba anigaaba xadiiska iyo qur-aanka iyo sunnada ku dhaamo kuwa hadda talada hayee haddayba cid u janjaarsanayaanba waxayd anigana iisoo janjaarsadaan laakiin aniga waxaan rabaa inay culammadu noqdaan kuwa u dhexeeya dadka oo aanan garab la safnayn kuwa u hiiliya cadaaladda oo xaakimka hadduu qaldan yahay iyo midka mucaaradku ahba qaldan yahay wada qabta laakiin aanan indhaha ka laabanin dulmiga xaakimka oo keliya aanan ku teegteegsanin qaladka ay ka arkaan qofka asaga ka soo horjeeda waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay is cafiyaan waxaan ugu baaqayaa arrintaasna inaan iska xirno jabtarkaasna uu soo gabagaboobo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu